Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada gambaleelkana furo si barnaamijyadu marka ay soo dhacaanba aad ula socotid dumarka ha weydiin da-dooda waayo macquul maaha inay si saxa kuugu sheegaan balse mowduuceena haweeney maraysay qaliin aad u halis badan ayaa digtoorkii su-aal muhiima weydiiyey wuxuuna ku yidhi waa imise da-daadu inkastoo hore loo yidhi nina mushaharkiisa ha weydiin agna da-deeda ayaa haddanana digtoorku ka maarmooyey inay u sheegto inta ay jirta haweeneydani kusoo dhawow mowduuceenoo dhammaystiran fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا dhakhtar ayaa haweeney uu daaweynayay weydiiyey da-deeda iyadoo loo diyaarinayay qaliin deg deg ah oo markaasi ay gelaysay wuxuuna yidhi imise jir ayaad tahay dumarku waxay aada ka jecel yihiin inay da-dooda mandahlaan ama qariyaan si cadna aynan u sheegin balse goobaha caafimaadka marka la joogo waa lagama maarmaan inaad da-daada aada si saxa u sheegtid dumarka yar iyo weyn waxay intooda badan doorbidaan inay da-dooda si saxa ayna u sheegin balse ugu dambeyntii waxay tidhi waxaan jiraa 25 jir ayaan ahay digtoorkii wuxuu yidhi daawadan aan kugu suuxinaya da-daada inaad run ka sheegto waxay u tahay muhiim waxay mar labaad u sheegtay inay tahay 30 sano jir wuxuu yidhi digtoorkii waxaa suurtagal ah inaad qaliinka dhexdiisa kici weydid wuxuu yidhi digtoorkii waxaa suurtagal ah inaad qaliinka dhexdiisa kacdid oo suuxdinta ku kari weydo caqabadna ay ku noqoto naftaada waxay tidhi haweenaydii 38 jir baan ahay wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaad kooma gashid ee da-daada runta ka sheeg haweenay yahay welina ma arag qof kooma gelaya oo da-diisa qarise waxay tidhi iyadoo qaylinaysa markii dambe haweenaydii 45 jir ayaan ahay wallaahi inaan hal sano ku darayn hal sanana iska jarayn ee hadday rabto naftu hayga boodee ee qaliinka igu samee digtoorkii intuu aad iyo aada u fiiriyey oo dhoosha ka qoslay haweeneydii ku yidhi hadda ayaad saxsan tahay qaliinkana waan gelayaa weli ma aragtay dhacdadan oo kale waa macquul inay haweeneydu ay si saxa u sheegin da-da ay tahay in ninka ragga ah furasireedkiisa akoonka lacagta ugu jirta oona si yar oo fudud qofna ugu sheegin dumarkuna waxay la mid yihiin sidaas oo kale intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhacdan cajiibka ah intaan ku kulmi doono mowduuca xiga waa walaalkiin oo idin leh fii amaan illaah